barnaamijka Soomaaliya toos wax wanaagsan ayaan leenahay Fadxi Maxamed waxay nagu soo biiray Maxamuud Badle oo shakhsi aad u isticmaala baraha bulshada wax ku qora daalacda la socda falanqeeya Maxamuud waxaanu la falanqeyn doonaa arrin ku saabsan sideedaba baraha bulshadu waayadan dambe ugu yaraan 8 sano 9 sano waqti lagu qiyaaso wax yeesheen saameyn badan oo awood badan bay leeyihiin waa warbaahinta ugu xooggan ba hadda marka laga hadlayo warbaahinta la adeegsado ee casriga awoodaha la tijaabiyay ودي مركز دودي شيء جايو كعبان كعرفته كله ميل كله لقى مرتين ها وحلو نفس أنت أقبض حي وربعين أما تويتر أما فيسبوك هات بل أنت هسمع دام إلا ضحي يعني أود أنت عليك إنك صومالي هان إنه ده أدنى استعماله محين لك قد بنا نستدعو تكسب مركا أنت هسمع إنه نلو ذاك دونا والله فريم محمد بدل سي wax badan ka og maadaama wax badan ka isticmaal warbaahinta bulshada goob joog TV ku soo dhawow gaar ahaan barnaamijka Soomaaliya toos bismillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam dhamaantiin waan salaamaya iyo dadka Soomaalida daawanayba runtii dhamaan shaqaalahana waxa weeye waan mahad celinayaa iyo barnaamijkaba runtii baraha bulshada Soomaalidu 8 sano ama 10 sano ugu dambeeyay ayay waxa weeye isticmaalkeedu aad u farabatay tusaale ahaan anigu markii aan waxa weeye ugu horeysay dadka Soomaalida dadkii ugu xilliyeedii ugu horeysay samaystay aan kamid ahay matalan 2009 ayaan samaystay ciwaankii ugu horeeyay Facebook ugu horeeyay markaas dadku aad ugu may badnayn marka waxa weeye waqtiga ka dambeysay ay dadku ku soo kordhayeen waxa laga yaabaa dadkaas wax weey dad arday ah ama dadka mataqaan aqoonta leh inay galiyeen hayse markii dambe xitaa ciyaalka iskuulka ahaa iyo dadkii family-ga dhamaan way soo wada galeen marka waxay noqotay meel la isku arko oo dhamaan yacni bulshada qaybaheeda kala duwan haday noqoto dhalinyaradii ku iskuulada dhiganay haday noqoto ku jaamacadaha dhiganay haday noqoto TV-yadii wararka laga daawanay haday noqoto family-ga aabihii hooyadii laftigooda in isticmaalaan marka waxay noqotay meel xogtii la isugu gudbiyo meel wanaagii iyo xumaantii labadiiba ay marayaan marka waxa jira Soomaali ahaan horta baraha bulshadu marka koowaad halis ayay leeyihiin oo bulshada ku leeyihiin wanaagna iyo mataqaana waxyaabo wanaagna walaada ka halistoo kale halista waxa kamid ah in qofka diintiisa maaragtay ay dhaawacdo iyadoo ay baraha bulshada soo geliyaan dad xitaa Soomaaliya ama af Soomaali ku hadlaya oo diintii Masiixiga waxa weeye faafinaya dad cilmaaniyiin lagu sheego oo waxa weeye iyaguna Soomaaliya haday doonaan ama wax doonaan ha ahaadeen iyaguna ma garanaysa bulshadii xumaantaas u soo faafinaya marka waxa laga yaabaa qofka diintiisa inay dhaawacdo waxa laga yaabaa qof aan diintii waxa weeye si fiican u garanayba inay saameyn ku yeelato oo diintii ma garanaysa shaki kaga abuuraan halisaha ay ku leedahay bulshada waxa kamid ah caafimaadka oo wax laga yaabaa qofku waxa weeye inuu xilli dambe seexdo oo waqtiga loogu talagalay hurdada aroortii ama shaqo ama waxbarasho ay sugayso oo waqti loogu talagalay aanu ka kicin hadhowtuna ay shaqadii iyo waxbarashadii dhibaato uga timaado waxa sax Maxamuud arrintii waxay tahay bal sanado kooban ilaa heerka inta la dadkan isticmaalaan wax keen waxa fududeeyay kow telecommunication Soomaalida oo waxa weeye internetka isgaarsiintii waxa weeye dadku aad u isticmaalayaan oo mobilkii waxa weeye loo sitay internetkii taas number 1 u ah in waxa weeye ay dadku aad u isticmaalaan waxa kale oo waxyaabaha ku dhiyay waxa kamid ah dadku hadda waxay isticmaalaan smartphone kuna aad buu uga qayb qaato markiiba wuxuu leeyahay inuu qofkii awood wuxuu leeyahay inuu internetkii ku xidhmo taasina waa qayb kamid ah waxa kale oo qayb kamid ah waxa ka qayb ka ah wararkii la soo gelinayo wax kasta oo goob kasta oo adduunka ama dhulka Soomaalida ka dhaca oo la soo gelinayo haday tahay arrin samafaleed haday noqoto war haday noqoto waxbarasho haday noqoto dad taariikhda garanaysa badana waxa weeye dadka u soo gudbiya xitaa BHP ku leeyihiin oo dadku waxa weeye meelahaas ka daalacdaan marka waxa weeye horta marka koowaad wuxuu leeyahay halis buu dadka ku leeyahay oo dhanka caafimaadka ah oo dhanka qoyska ah waxa laga yaabaa inaynu inagu niraano social media ama baraha bulshada waxay aad u fududeysay in dadku isla xiriiraan meel ka duwan haddana dhanka kale marka laga eego waxa laga yaabaa in qaraabo goys noqoto dadka ehelka gurigooda jooga hooyadiina ay ku mashquulsan tahay gooniga mashquulsan tahay aabihii uu mashquul gooni ugu yahay
yararkiina ay gooni mashquul ugu yihiin la kala mashquulsan marka miisaan marka la saaro faa'iido iyo dilirada saameyn yaa miisaan badan horta Soomaali ahaan markaynu eegno ma jiraan dad daraasad ku sameeyay dhab ah oo maanta ma oran karno saas laakiin waxay u badan tahay in faa'iidadu ay badan tahay maadaama ay jiraan in warkii magaaladaadii ahelisid waxa weeye warkii adduunka dhan aad helisid waxa laga yaabaa dhanka xiriirka familiga iminka taa qaraabo goyska macnaha waa halista qayb ka mid ah laakiinse yani haddaynu eegno dhanka wanaaga waxa laga yaabaa dadkii ehelka ah ee adduunka kala joogay asxaabtii iyo ehelkii iyo businesskii iyo wixiiba qofkii uu kula xiriiraya midda markaynu eegno magaaladu qofku ka soo jeeday marka aanu joogin ama meel kale uu dad asxaab ku lahaa hadduu qof ka mid qof geeriyoodo tacsidii markiiba uu arkaya isla markiiba uu arkaya awl waxa laga yaabaa markuu meeshaas ku noqdo goobta inuu ogaan lahaa la warna hebel meeka warama la warna hebel uu geeriyooday bari hor geeriyooday laakiin maanta waxaad ogtahay qofkii geeriyooday marka wargeliye fudud qofkii saaxiibka ahaa ee mehersanayay marka waad ogaanaysaa waad u hambalyeynaysaa farxadda halkaas kala qayb qaadanaysaa waxaa kale oo waxa weeye waxyaabahaas oo dhan buu ka qayb qaataa oo fuday xogaa sheekooyinka lagu soo qaata Facebook oo kale marka meel maqaayad ama cafeteria la fadhiyo kooxda leeyahay ama la wada shaqeynayo laga yaabo in farqada lahayo dadka wada sheekaysan saddex nin ka wada fadhina mid kasta Facebookiisa ku jira marka waxa qofkan ku dhow ma la hadlayo qofka fog inuu rabo inuu maaweeliyo taasi waa sababaha keenaya macnaha inay bulshadii marka dadka asxaabta ah meherada isugu yimid waxay meesha u yimaadeen inay sheekaystaan waxa laga yaabaa inay baraha bulshadu saameeyaan oo qofkan ama sheeko xiiso leh ama qof marka uu doonayay inuu soo galo marka uu la xiriiro marka qof kale dhageysanayo inuu ihtimaam siiyo soo eegayo mataqaan marka si fiican qof u dhageysanaya warkii ka aqbalaya laakiinse haddii aanu qofkani ku soo jeedinba hadalkaaga wuxuu noqonayaa inuu meel maran ku dhaco waa gartay intani su'aasha fatix ku din su'aalkan raacsanay sax waxa jirta awoodiisii waynu isla qirnay inuu yani teknolojiyad ama isgaarsiin casri ay tahay waa isla ognahay laakiin marka sidii loogu talagalay laga hadlayo awoodahan Soomaalidu ma ka gaabisay oo intan awood ka badan ma adeegsan lahayd ama markaynu taa eegno Soomaalidu waxaynu qiraynaa bulshooyinka kale si inay u isticmaalin si ka badan inay u isticmaasho oo waxa weeye sidaynu ka warhaynaba wadamada kale adduunka dadku waxa weeye de system iyo dawlado iyo shaqooyin iyo way naga fara badan yihiin runta marka laga hadlo dadka waxa laga yaabaa hadda dadkii aqoonyahanka ah inay shaqahayn marka inay amal ka dhigtaan baraha bulshada oo aad u isticmaalaan marka dhanka wanaaga ah aad baa Soomaalidu ugu isticmaashayo culimadii baa joogta oo dadkii waxa weeye kala socdaan wanaagii bay kala socdaan suugaantii bay ka arkayaan waxay kala socdaan wararkii iyagoo TV gelin warbaahintaaba waxa weeye imka doorbidaysa wararkii inay waqtigiisa la sugto oo baraha bulshada soo marinaya maadaama ay jiraan dad meeshaas ku soo geli kara live oo warkii ka soo qaadi kara markaana waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay dadka kale ka badan tahay dhanka isticmaalka oo waxa weeye ay keenayso dhanka shaqada iyo waxa weeye dhanka amal la'aanta iyo maadaama Soomaalida waxa la dhahaa waa dad hadal iyo waxa weeye oral society marka waxa laga yaabaa markasta video clipkan iyo waxaan inay iska daawadaan inay iyaga laftigooda live soo galaan oo hadlaan oo marka wax sheegaan si saameynta u yaraato ma la xadidi karaa ay kula tahay isticmaalkiisa faraha badan wallahi waa la xadidi karaa koo waxaa xadidi karaa waalidka maaragtay dhalinyarada kale waa laga taxadiri karaa oo waalidka kula xisaabtami kara isagoo samayn kara inuu mobilada ka qaado ama wirelesska uu off ka yiraahdo macnaha ma ka xiro waxa kale oo lagu yareyn karaa in system dawladeed oo waxa weeye qofkii mataqaana marka xumaan u isticmaalo kale in laga xiroba de caalamka qofka waa lagu dabagalaa qofka ilan informationkiisii saxda ahaa ayaa meesha ku jira marka wakaas intaasaan macnaha ka oranaa aad buu mahadsan yahay Maxamuud Badle oo qodobkaasina la falanqeynaya ku saabsan warbaahinta loo yaqaan social media ama warbaahinta bulshada saameynta leedahay awoodeeda